Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada channelka Samiir Ogaal. Adduunkan aynu ku noolnahay maanta waa mid ay ku yartahay naxariista iyo is-aaminaadu. Waxaana markasta oo qof faqiir ah wax weydiisto dadka ay dadku u arkaan tuugsada dhib badan ama tuug xariif ah. Balse badanaa dadka saboolka ah waa kuwa ay qalbiyadooda ka buuxaan naxariis iyo wanaag. Haddii aan ogaano taasna waxa laga yaabaa inaynu ugu yaraan hal qof caawin lahayn, taas oo ka dhigi lahayd adduunka mid wanaagsan. qisadan cajiibka ahna waxa ay ka dhacday caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi markii wiil yar oo lagu magacaabo John Tuwa oo ka yimi xaafadaha saboolka uu yimi wadooyinka waaweyn ee Nairobi si uu dadka baabuurta wata u weydiisto lacag yar oo uu ka dhigto nolol maalmeedkiisa. Ma lahayn wax qaraabo ah wiilkan yari, waxa uu ahaa mid la daaladhacaya sidii uu noolaan lahaa. badanaa dadka baabuurta watana ma ahayn kuwa wax siiya, laakiin waxa ay ahayd sida kaliya ee uu wax ku heli jiray wiilkan yari. haddaba maalin maalmaha ka mid ah waxa wiilkan yari u yimi gaari wadada taagan si uu u weydiisto xoogaa lacag ah, laakiin wixii uu ku arkay gaariga gudihiisa ayaa noqday wax ka yaabiyay. darawalku waxa uu ahaa qof dumar ah, waxaana jirkeeda ku xirnaa tuubooyin badan kuwaas oo ku sii xiriirsanaa haamo waaweyn. sidoo kale gaariga waxa saarnaa mashiin aan wiilka yari garanayn waxa uu qabto. kadib markii uu arkay qalabka la yaab kale ee ku rakiban haweeneyda, waxa uu wiilkii yaraa weydiiyey sababta ay u sidato qalabkan. haweeneydu waxa ay ahayd Gladys Kamande, waxaana u socday daaweyn sababtoo ah waxa xanuun kaga dhacay sanbabada. si ay u sii noolaatona waxa khasab ku ahaa inay markasta adeegsato qalabka oksijiinta oo ka caawinaya neefsashada. sidoo kale markii ay ka degto gaarigana waxa ay adeegsan jirtay kursi curyaan ay ku xiran yihiin qalabka neefsashada ka caawinayay. haddaba haweeneydan ayaa John u sheegtay wax kasta oo nolosheeda ku saabsan iyo qalabka uu la yaabay ee iyada ku xiran, taas oo keentay in wiilkan yar aad uga qalbi jabo qisadeeda isla markaana oohin jabsado. waxa uu ogaaday inay jiraan dad noloshooda aad uga xun tahay tiisa, marka uu qofku waayo caafimaadkiisana aysan jirin wax kale oo muhiim u ah. aad ayuu u ooynayay isaga oo ka murugaysnaa inuusan waxba u qaban karin haweeneyda nolosha ku dhiban. waxa uuna siiyey shilimaad uu maalintaas soo aruursaday isaga oo og inay lacagtu tahay mid aad u yar. haddana waxa wiilkan yari doonayay inuu si uun u caawiyo haweeneydan. Gladys waxa ay isku dayday inay dejiso wiilkan yar. intaa kadibna waxa dhacdadan la kulmay qof meesha marayay, waxa uuna weydiiyey sida ay wax u dhaceen. markii uu ogaaday qisada dhex martay wiilkan yar iyo haweeneyda, waxa uu sawir ka qaaday labadoodaba, waxa uuna soo dhigay Facebook isaga oo soo raaciyay qisadooda. intaa kadib waxa qisada wiilkan yar ee naxariista badan ka yaabisay dad aad u badan, waxaana maalmo yar gudahood sawiradoodu noqdeen kuwa caan ah, taas oo keentay bilowga isbeddel ku dhaca noloshii wiilka yar iyo haweeneydii xanuunsanayd. kumanaan qof ayaa internetka dhexdiisa uga ururiyay lacag gaaraysa $80,000, waxayna Gladys ka caawiyeen inay dhakhtar u aado waddanka Hindiya. haweeneydan oo da'deedu ahayd 32 sano waxay awooday inay ka soo kabsato xanuunkii. sidoo kale falanqayn badan oo laga sameeyay naxariista iyo wanaagga John ayaa sababtay in la helo dad korsada, waxaana noloshiisa kafaala qaaday hooyo aad u wanaagsan, waxayna John ka soo kaxaysay wadooyinkii uu ku tuugsan jiray. hadda John waxa uu dhigtaa iskuul, waxa uuna ku nool yahay guri aad u wanaagsan. sidoo kalena waxa uu haystaa hooyo jecel. ficilkiisii naxariista badnaana waxa uu bedelay noloshiisii. haddaba wadajir dadku waxa ay rumayn karaan riyooyinkooda, waxayna bedeli karaan noloshooda. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar kuna soo biir channelka Samiir Ogaal si aad ugala socoto muuqaallo badan oo xiiso leh.